السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we have a good lesson about short phrases. maanta waxaynu haysanaa cashar aad u muhiim oo ku saabsan jumladaha kooban. qofku markuu English dhiganayana boqolkiiba boqol waxa u wanaagsan inuu kuwan oo kala dhigto. yacni markaad meel laga hadlayo tagto English adigu uma baahnid present perfect tense iyo continuous iyo wixii schoolka form 4 form 3 lagu dhigayay uma baahnid. dukaan baad doonaysaa wax ka soo iibsato wadda doonaysaa qof marayna la hadasho waxaad u baahan tahay phrase ama jumlad aad kula hadasho hadhow toona qofku markuu ku jawaabo waxa weeye inaad meel dhaxays ku timaadaan isfahantaan baa dhici karta laakiin haddaad present perfect qolas ka soo dhigatay dee waxaad aad taqaanaa ma jiraan marka aynu bilowno insha Allah ta koobaad waxa weeye I will never abandon you weliga kuma cidlaynayo ta ku xigta waxa weeye how did you study English sad English soo baratay maybe someone ask you you're speaking English so well qof baa ku weydiin karay English taas oo wanaagsan ma ku hadashay how do you study English sad English ku baratay where buu ku oran karay where did you study English xagee English ka baratay I study English for English wax ku baratay by watching movie ama filmaanta daawada ayaan ka bartay filmaanta or ama say watching when native people are speaking ama daawashada dadka cadaanka ay markay hadlayaan aan iska daawo ta ku xigta where are you at xagee joogtaa weey aad bay ku muhiim yihiin maybe someone call you laga yaabo qof ku soo garaacay then you pick up the phone and say where are you at waad ka qabatay telefoonkii waxaad tiri xagee joogtaa where are you at marka fast speaking waxa la yiraahdaa where are you at lama oranayo where you at u qoranaya tanaxansa I am at restaurant waxaan joogaa rodheelka I am at school I am at road meesha joogto sheegaysa marka I am at but jawaabteedu noqonaysa have a seat soo fadhiiso I find out that you were cheating on me waxaan ogaaday inaad khiyaamaysay tan waxa ku siisa qoliyaha moogta jacaylka jiray waxa waaye ta ku xigta I believe waxaan rumaysanahay study English dhigashada English is depending on inay ku xiran tahay being in London America in London ama America joogto this idea is really incorrect fikradan ma saxsanayd oo waayo study English not depend on wherever you are kuma xilnay dhigashada English meexta joogto I know I can speak English even if I am in Somalia or wherever I am dhigashada English dadka qaar wax ka aaminsan yihiin haddii aad London ama meel laga hadlayo joogto in aad automatically aad u baranayso every single of you mid kasto idin kamid ah every single one of you mid kasto idin kamid ah has wuxuu leeyahay something shay buu leeyahay that you are good at ku fiican tahay wani qof kasto idin kamid ah waxba ku wanaagsan yahay talqan ku raahno every single of you has something that you good at what do you want oo ku muhiimka waa qotano kala marka qof faahimka hadaanad aragtay oo markaas kuuba yimi oo wax aad ugu sareeyni ama si kaliya iskaga dhacay what you want waad qof xadoonaysa markii qofkii hadhay communicated isfahan badhay can not make you happier now kama farxin karo hada can make you happier now I don't care what you are going through right now aniga waxba igama gelin waxa hadda marayso xaaladdan hadda ku jirto aniga waxba igama gelin maybe someone told you his weakness qof ayaa ku sheegay daciifnimadiisa oo I don't have money can you help me waxa soo qaybay caawin kartaa dadku I don't care what you going through right now aniga waxba igama gelin waxa hadda ku haysta marka taasi muhiim ku tahay taasuna I have been looking for having this for a while in badan bay sugeeyeen inay dhacdo jumladdan kale aad muhiim u tahay laga yaabo qof aad taageerto ama macalinka ama fanaan ama wuxuu doonaba ayaad face to face soo aragteen qofkaas oo qof aan luqadda kale ku hadla waxaad ku oranaysaa markiiba I have been looking for having this for a while I have been waxaan ahaa looking for mid sugayay having inay dhacdo this time for a while in muddo wax sugayay inay dhacdo macnaheedu waad ka sii soconaysaa markaan waxaanaysaa I am one of your supporters I am one of your fans so how do you see if we take a picture together sadwarta den soo wada galno deedna qofkii communicators ku xilbaa meeshii manay marka luqadda English marka la dhiganayana system waxa weeye qofku markuu vocabulary area soo dhigto uu soo dhigto desk miis table book pen waxa soo dhigto inuu kuwan ku xijisto